markii waa ninkii ugu horeeyay ashkaas oo ahay isku dugsi oo ahaan jirnay adiga waxay ahayd qabsan 11kii alkii manaas ahayd isku dugsi aan jiray iskool oo isku xaafadna markii de Faransiga ku soo yara bartana ma arag wada kala shiriyay kadib markii ay fanka ku soo biirtayna waxay jacaylkeedii mar labaad nasiib u helay Zakariya Cadow Cabdullaahi inta horta fanaanka ahay Saacidi ahaantida heesay halka uu wiil baa wada soconay Saadiyo heesta ay fanka ku soo gashay ayaa waxay ahayd heestii Ibrmiya wiilamada saaxiibahay qurbaha aaday Zakariya Cadow Cabdullaahi ayaa waxa uu ama baxay dhanka qurbaha wuxuuna Zakariya nasiib u helay in loo qaado heesta Dhagax Buur waatan iyadoo ka hadlaysa qisada heesta Dhagax Buur muddo aan heesta Dhagax Buur xataa ka qaaday laakiin asaga Dhagax Buur ku dhashay taballe booskii wiilkii buuxinaya maadaama wiilkii uu sanfaan ahayn oo anina baasha lamaana ku fiican tawa wiilka dhahay asagana inkastoo dhoofo dhulsha shay aad dhoole jacay kuulu dhibaya de taballe ma dhulshii waa la joogay marka geesaas loo sameeyay wiilamada saaxiibahay qurbaha aaday baayaha aragoo waxaan dhalaaday inagoo reer dhisno Dhagax Buur degno ku dhamayno xaajada sidoo kale waxa in badan lagu xaman jiray Saadiya Guray inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyo Maxamed Tawalle dhanka kale fanaanadan Saadiya Guray ayaa waxay fanaaniintu ragga taageertaa Cawaale Aadan Cawaale Cashri halka dumarku ay taageerto Farxiye Axmed Cadaawe Farxiye Fiska ragga maanta yadii Saadiyaanta inta qiimeeyay Cawaale Aadan dumarka midna Farxiye Fiska iyo shakada iska cadahayba waxaan ku jeclaaday si qaabkiisa codkiisa wakaas waatan iyadoo ku luqeynaysa hees ka mid ah heesaha iyadoo dareenka ku leh maadaama Saadiya Guray ay qaado heesa in badan ka tarjumaya dareenka jacaylka ee qof waliba ku dhaca caadilo allahayo midkan calafo yeeshe cara iga fog joogo cala lagu magaare nabadiga soo celi asabado taabtay abaan waxa malaydaa in aniga iga sameeyay to kala ku luqeynaysa heestii Dhagax Buur maadaama ay Dhagax Buur tahay halka uu ka soo jeedo Zakariya Cadow Cabdullaahi kuna socotay heesta isaga maadaama laba wadan kala fog ay kala joogan marka hore aniga badhigo sidoo adiga ka dhigay ana iidatiyo waaniga la dhuubtay baablo dhubto bema ugu dambeyn wuxuu meherkooda ka dhacay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halka arooskoodu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Zakariya Cadow Cabdullaahi Zakariya Model ayaa nasiib u helay inuu hanto ama ay ooridiisu noqoto fanaanada caanka ah ee Saadiya Guray haddaan nahay bahda arrimaha jacaylka waxaan leenahay burkii lagu nastay lagu nagaaday wada jireen nabad gala wiil yacano gabar yacano ayaan wada idinka leenahay